ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee. bismillaahi raxmaani raxiim. maadada waa physics, galaaska waa form 4. cutubka koobaad oscillator motion. weli waxaynu dhex joognaa cutubkii koobaad oscillator motion. lesson 4 casharka afraad energy of simple harmonic motion. waxaynu uga hadli doonaa casharkaani tamarta uu leeyahay socod walhadeedka fudud. haddaba casharkaani ahdaafta aynu beegsanayno dhammaadkiisa waa in ardayga uu karo in uu sheegi karo energyga simple harmonic motion, habka loo formulate gareeyo formulihiisa, iyo inuu xalli karo yani problemska la xiriira energy of simple harmonic motion. Energy of simple harmonic motion. Energy of simple harmonic motion involves two different types of energy: potential energy and kinetic energy. haddaba tamarta uu leeyahay socod walhadeedka fudud waxaa la xiriira laba nooc oo kala duwan oo tamar ah. waxa ay kala yihiin tamarta kaydka iyo tamarta dhaqaaqa. Potential energy is stored energy whether stored in gravitational field or stretched elastic material, while the kinetic energy is the energy any moving has, which is proportional to the square of the thrust of that object. haddaba potential energy-ga waa tamar kaydka, halka whether stored in gravitational fields, kaasoo ku kaydsan gravitational fieldska ama aagga isjiidka dhulka oo saameynayo. labo, or stretched elastic materials, ama waa tamarta ku kaydsan shay la jiiday oo elastic ah ee dabacsan ee jiidmaya. While the kinetic energy, halka tamarta dhaqaaqa ay tahay, is the energy, waa tamarta uu leeyahay shay kasto oo dhaqaaqaya. haddaba tamarta dhaqaaqa waxa ay saamigal quman ee la tahay laba jibaarka xawaaraha shaygaasi uu leeyahay. The potential energy stored in a spring that is stretched or compressed the distance x from equilibrium is given by. tamarta kayd ee ku kaydsan moolo taasoo la jiiday ama la cadaadiyey fogaandhan x from equilibrium, bardhaxaadka kasoo fogaatay inta bardhaxaadka ee u jirto, waxa oo formulahaasi yahay oo leeyahay u waa 1/k(x²). x-ka waxa uu taagan yahay inta shaygaasi oo ka fogaaday equilibriumka, halka k ay u taagan tahay spring constant. u-dan waxay u taagan tahay potential energy-ga ku kaydsan in a spring. An object with mass m oscillating on a spring also has kinetic energy. shay leh mass oo oscillation ku sameynaya spring waxa uu leeyahay kinetic energy. Kinetic energy and potential energies together give the total mechanical energy of the system. haddaba wadarta kinetic energy-ga iyo potential energy-ga ee walax ay leedahay wuxuu matalaya total mechanical energy-ga ee systemkaasi uu leeyahay. E oo ah total mechanical energy waxay la eg tahay k oo lagu daray u, halka k ay u taagan tahay kinetic energy, u-dan ay u taagan tahay elastic potential energy. k waxa ay la eg tahay qiimo ahaan waa 1/2 mv², halka u ee qiimo ahaan u dhiganto 1/2 kx². Total energy or total mechanical energy. The total mechanical energy of simple harmonic motion is a constant and is proportional to the square of the amplitude. Thus, whatever potential energy is lost must be gained by kinetic energy and vice versa. Total mechanical energy uu leeyahay simple harmonic motion-ka waa mid madoorsooma ah. saamigal qumanna waxa uu leeyahay laba jibaarka barabaxa ugu badan ama amplitude, qotinka ama barabaxa ugu badan. Thus, whatever potential energy is lost must be gained by kinetic energy and vice versa. wax kasto
oo ka nusqaama marka potential energy-ga waxaa qaadanayo kasbanayo kinetic energy-ga iyo and vice versa والعكس صحيح. haddii aynu eegno waxaynu dhahaynaa marka total mechanical energy waa kinetic energy oo loo geeyay potential energy. haddaba haddii kinetic energy-ga 40 uu yahay total mechanical u-dana ay la eg tahay 50 wadarta guud waa 90 wadartaani mid isbedelaysa ma ahan. haddii kinetic potential energy-ga oo 10 nusqaamayo kinetic energy-ga wuxuu noqonayaa 50 potential-kana wuxuu noqonayaa 40 wadartan waa 90. haddii ay dhacdo in potential-ki oo 10 kala nusqaamiyo 30 ayuu noqonayaa kinetic energy-gana wuxuu noqonayaa 60. wax kasta oo ka nusqaama macnaha potential energy-ga waxa uu ku kordhayaa kinetic energy-ga wadartuna isbedel ma laha. haddaba waxaynu dhahaynaa potential energy-ga waxa uu ugu qiimo badan yahay marka la joogo labada maximum potential energy-ga ugu qiimo badan marka displacement-ga 0 oo noqdo potential energy-ga waxa noqonayaa 0. markii labada daraf la joogo amplitude oo maximum displacement-ga la gaaro haddaba potential energy-ga wuxuu noqonayaa maximum. laakiin markii potential energy-ga displacement-ga 0 oo yahay bimaana equilibrium position-ka uu taagan yahay haddaba kinetic energy kaliya ayaa halkan jiraya E equal 1/2m times 0 square plus 1/k times plus or minus a square. oo markay geesaha darafka la gaaro potential energy-ga velocity-ga halkan geesaha waxa uu noqonayaa 0 ayuu noqonayaa halka displacement-ga oo maraya maximum displacement. sida daraaddeed marka xaaladaasi mechanical energy-ga waxa uu la ekaanayaa half k square. total mechanical energy-ga ee walaxda ay leedahay in simple harmonic motion on spring ayuu noo matalaya. note the total energy of an object in simple harmonic motion is directly proportional to the square of the amplitude. haddaba wadarta guud ee tamarta ee walaxda ay leedahay taas ku socota socod walahadeed fudud waxay saamigal quman ay la tahay laba jibaarka qotinka ama laba jibaarka barabaxa ugu badan ee. the velocity of an object in a simple harmonic motion is given by. haddaba total velocity ama xawaaraha uu leeyahay shay ku socdo simple harmonic motion waxa uu la egyahay formulahaani plus or minus square root k over m times a square minus x square. x-ka marka uu 0 la egyahay xaaladaas velocity-gana wuxuu noqonaa maximum ayuu noqonaa. okay marka maximum oo noqdo 0 aan ku bedelna marka maxay noqonaa k over m times a oo la mid ah plus or minus omega oo lagu dhufto a. haddaba maximum displacement-ga sidaas ayuu noo noqonayaa. haddii ay dhacdo marka in aan dhahno x-keena waxa uu la egyahay maximum displacement xaaladaasi velocity waxa uu noqonayaa 0. aynu eegno haddii x-ka iyo a la mid noqoto a square minus a square waa 0 times k 0 square markaa ka saarno velocity wuxuu noqonayaa 0. when the oscillating object passes through its equilibrium position its potential energy is 0. markii oscillating object-ga oo soo maro equilibrium position oo soo maro haddaba potential energy-giisa waa eber لأن displacement ayaa wuxuu la ekaanayaa 0 ayuu la ekaanayaa. in this instant all energy is kinetic and then the maximum velocity is given by. xaaladan ilbiriqsiga la marayo markii energy-ga potential-ka 0 uu yahay waa markii equilibrium position-ka la marayo all energy-ga dhan wuxuu noqonayaa kinetic energy ayuu noqonayaa. haddaba maximum velocity-na ayaa meesha ka helaynaa oo la eg inta. activity problem solving activity-gan isku day waxaa lagu dhahaa describe this equation v intaas ayay la mid tahay waxa og tahay intaan in isleegi v-da ka soo saar formulahaas
drive haddana this equation maximum velocity intaasoo la egyahay haddaba haddaad taqaanid labadan inay isla egyihiin waxaa ka soo saartaa maximum velocity. Example, a block of with mass 0.5 kilograms sitting on frictionless surface is connected to a light spring that has spring constantly 180 Newton per meter. If the block is displaced 50 centimeter from its equilibrium position and released, what are the total energy of the system? The speed of the block when it is 10 centimeter from its equilibrium position and the maximum speed of the block. هذا بس ده سؤال هالكان نوتال. سؤال شو بعد وحلا إذا يو نولد دري إن أن سهلنا إن total mechanical energy إن أن سوغانو. قلب كلامنا على إسكاربو speed كبلاغ أولي هاي مركا displacement 10 centimeter أولي هاي قلب كذا حدنا maximum speed إن أن سور هذينو. أوكي. هذا سؤال شو بعد ساعة أحلنا marka hore waxaynu soo baxsanaynaa givenka kow maaska wuxuu leeyahay la yiri 0.5 kilogram. Okay, 0.5 kilogram. waxaa kaloo la siiyey xooga k waxay la mid tahay 180 Newton per meter. waxaa kaloo la siiyey maximum displacement wuxuu leeyahay 15 centimeter. waxaa kaloo given okay su-aasha marka total mechanical energy xalli total mechanical energy waxa uu la mid yahay E half k square. haddaba half k waxay la mid tahay 180 Newton per meter times A na waxay la mid tahay 15 centimeter oo la mid ah 0.15 meter. 0.15 meter all square. haddaba jawaabteena waxa ay noqonaysaa 2.025 joule. intaasoo joule ayuu noo noqonaya. Okay, su-aasha labaad oo noola diray waxa weeyaan inaan helno speedka marka x oo leeyahay 10 centimeter. haddaba su-aasha b waxaa noola diray v marka ay speedka x oo leeyahay 10 centimeter. haddaba waxaynu leenahay marka su-aashan si aan u xalino k over m times a square minus x square. k waxay la mid tahay 180 Newton per meter. maaskuna waa 0.5 times A-da waxay la mid tahay 15 centimeter or 0.15 meter square. 0.1 meter square all square root geli. intaas ayaynu xalinaynaa. haddaba jawaabteena waxay noo noqonaysaa waa 2.12 meter per second. Okay, su-aasha ku xigta waxaa noola diray maximum velocity. haddaba maximum velocity waxaa lagu helaa dhane plus or minus a oo lagu dhuftay square root k over m. square root a meeqa marka waa 0.15 180 loo qaybiyo 0.5 times 180 markii loo qaybiyo 0.5 waa 360 oo la mid ah. waxay jawaabtu noqonaysaa 2.85 meter per second. 2.85 meter per second. ardayda isku daya in aad xalidaan these practice problems. problemkan isku daya in aad xalidaan. mahadsanidii ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee